imika anu baasaboorkan waxaan ka dhex qaatay magaalada Hargeysa laga siiyey si sharciya lay siiyey baasaboorkan waxa u furan xafiis weyn xafiiskaasi waxa uu ku yaala santarka magaalada laakiin waxa maskaxdaydu isweydiinaysaa Somaliland calanka buluuga ah way neceb tahay baasaboorka Soomaaliyana way jeceshahay bal labadan qodob isqabadsiiya waa arrin aad la yaabayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya meel kasta oo kala joogtaanba guda iyo dibadba بسم الله الرحمن الرحيم waxa maanta shaashadaha ku arkayay shalay toole magaalada Hargeysa in lagu xidhay steen dhar sports oo Soomaaliya ah haddaba waxa isku kay qaban weyday laba arrin baa aniga isku kay qaban la beenta iyo khiyaaliga ka jira dalka Soomaaliland waa dalkayagii waan jeclahay waxaan ahay Somalilander laakiin waxa maskaxdaydu isweydiinaysaa Somaliland calanka buluuga ah way neceb tahay baasaboorka Soomaaliyana way jeceshahay bal labadan qodob isqabadsiiya waa arrin aad la yaabayso imika anu baasaboorkan waxaan ka dhex qaatay magaalada Hargeysa laga siiyey si sharciya lay siiyey baasaboorkan waxa u furan xafiis weyn xafiiskaasi waxa uu ku yaala santarka magaalada salaan inaad roon ka qaaday wuxuu ku yaalaa santarka magaalada wuxuu u jiraa saldhigga dhexe 100 tallaabo ayuu jiraa xafiiskaasaa tegaysaa farii baa lagaa qaadayaa indhihii baa lagaa qaadayaa waa lagaa buuxbuuxinayaa 3 shaad sugaysaa baasaboorka waxa xafiiska ilaalinaya oo kidinkiisa taagan askari biliiska ah askari biliiska ah ayaa xafiiska baasaboorka ka qaadanayso nabadgelyadiisa ilaalinaya kadib waxa isku kay qaban la baasaboorkana in laga qaato Hargeysa Somaliland way ogoshahay waliba nabadgelyadii bay siibay ilaalinayaan biliiskii Somaliland qofka mare buluuga xidhana waa dambiile bal arrintan idinku isqabadsiiya ilaahay baan idinku dhaariyay naasir cabdishamadaan kariim naadir arrintaasi ilaa xalay maskaxdayda ka guuxaysay okay haddana waxaan kaga soo baxay madaarka Hargeysa immigration-keena ayaa ii soo shaambadeeyay haddaba baasaboorkii Soomaaliya halkan ka qaatayna waa magaalada Hargeysa maxay Soomaalidu jirtay baktiga ma cunee fuudkiisaanu cabnaa baasaboorkii Soomaaliyana Hargeysaan ku dhex bixinaynaa marada buluuga ah qofka xidhana waanu eriyeenaynaa waxaan qoslay markii shalay askartii inanka wadi lahayd dharkan halka lagu iibiyana soo tus oo maxaa waaba dhare ay ka eriyeen immigration-kii Soomaaliya saldhigga 100 tallaabo u jiray oo kan laga qaadanayaa
miyaana kan arag askarta diidaysa meel maryo buluuga lagu iibiyo bal cibaaradan idinku eega inanka ka wakiilka ah laanta socdaalka ee Soomaaliya ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa inanka ka wakiilka ah waa inan reer Samatara waa Muuse Biixi in adeerkii baa dhalay marka sharciga Muuse Biixi in adeerkii u fasaxay isagoo amgariishkii Soomaaliya ka wakiila inuu Hargeysa baasaboorada ku bixiyo inanka shacbiga ee shaadis ee Maria Sport Soomaaliya soo xidhaan uu dambiil qaran yahay bal idinku hortiis qabsiya war dalkan hadii la wada ilaashanayo waa in sharcigu sidii yahay loo soo maro anuu nin aan rabaanahay waxaan arrintan u arkaa markaan xaqiiqiyan ka hadlo ee aanan cidna u habran runtana aan ka sheegayo beesha garxajis haddii lagu arko wax Soomaaliya ah waa dambiile beesha habar awal haddii lagu arko wax Soomaaliya ana waa sharci anu taasaan u arkaa weliba waxaan u sheegayaa reer Somaliland inta kale wartay ma eegan karno arrimaha noocana qarankan waa loo soo dhintay waa loo soo dagaalamay adeer Somaliland qalbigeedii ay ku jirtaa ninna kagama habranayo aniga leh laakiin ma yeelayo waxyaabaha ka socda dalka markaan arko ana baasaboorkan bixinaya ninka qofka Masriga oo buluugan ku arkana waa dambiilo waan xidhaya aqli ma noqonayso waxaan ka rabnaa xukuumadda Muuse Biixi hadday ka dhab tahay Somaliland dadnimadu xabsiga aruurta soo dhiga ninka amgariishka Soomaaliya ka wakiilka baasaboorada bixiya waa inaan ku adeerka u yahay xabsiga ha soo dhigo ninka mara soo xidhay iyo ninka baasaboor ku bixinaya Hargeysa ee amgariishkii Soomaaliya ka wakiilka ah keeba jiritaanka Somaliland ku khatara ka bixinaya ku khatara oo cadeeyay inaad maamul goboleed tahay markaan tagay xafiiska baasaboorkii Soomaaliya waxay ugu qoran Hargeysa inaan ka qaatay waxaan ku ri baasaboorka maxaad ugu qoraysaa Hargeysa Muqdisho ku qorban ku wi wallahi yani ma ogola bal baasaboorkii Soomaaliya ayaa leeyahay waxa ka qaatay Hargeysa waxaan wuxuu ii cadeeyay inaan maamul goboleed ahay haddii aan maalintii tan baasaboorka qaaday soo dacweeyo aniga la xidhay waliba isaga lama xidhay markaana waxaan leenahay bulshada kale ee reer Somaliland war sharcigii dalka ama ha loo sinaado ama meesha lagu kala dhaqaaqo anu maanta waxaan xaqiiqiyan arkaa inanka Maria Sport oo calankii Soomaaliya soo xidhan iyo ninka baasaboorada ku sameynaya Hargeysa dhexdeeda ee shacbiga reer Hargeysa ku yugo ugu jiraan bilayskina nabadgelyadiisa ilaalinaya bal ummadan aqligeedii sida loogu ciyaaraya Ilaahay baan ku dhaariyay eega idinku kuyuba loogu jira ninka
in ilaalinaya waa nin bilaysa ee kolba qof la soo gal balse arrintaas aniga markaas arrintan waxay igu noqotay wax fajacaa wax la yaaba haddii Soomaaliya la diidayo adeerkan baan ka qaatay Hargeysa oo xafiisu furan yahay oo Ibliisku ilaaliyaan xafiiska u furan oo musabixiin inanku adeerka musabixu yahay ba haysta oo ka wakiila amgariishkii Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya uga wakiila magaalada Hargeysa marka xaqiiqiyana haddaan ka hadalno ka qof ku xidhay waxay calan yaro buluug u xidhay uma danaynayo Soomaaliya hadduu u danaynayo musabixi wakaas ha soo xidhaynaade inanku adeerka u yahay ha soo xidho oo ummadda Soomaaliyana ha hor keeno oo xabsiga ha soo dhigo hadduu soo dhigi waayo waxay noqonaysaa anagu Ilaahay baanu ka baqaynaa cidna kama baqayna cidna ma raafnine Soomaaliya habar awal waa loo ogol yahay laakiin garxajis lagu marki karo wax buluuga saasay u dhigan tahay waa marka gar Ilaahay ba taqaana Ilaahay baan ka baqaynaa Ilaahay baan ka baqaynaa wasida weeg tahay ummadda riwaayad loo dhigayaa in sarxaad lagu ridayaa bal afayeenba halka isla soo taagay hebel la koolaadii meeyuu diiday war adaad ay dhimay musabixiin adeer inanku adeerka u yahay diiday ee kuwa Hargeysa ku bixinaya kaasa diiday ay dhimay oo ka dhigay maamul goboleed wuxuu u wakiil yahay inanka bixiya waa wakiilka laanta socdaalka ee amgariishka Soomaaliya wakiilkeeda xafiiskeeda Hargeysa waa ninka haysta musabixiin adeerkii baa dhalay arha la soo xidho ay dhimay kaasa liqay been baad ka sheegteen calan buluugaan diidanahayna been baa ka sheegteen musabixiya wixii la halmaalo ummadana indheheeda been u sheegaysa aqliga ummadana aragteen inuu yahay aqli qabyaalada qaatan oo aan muwaadinimo ku jirin haddii muwaadinimo ku jirto yaa aroorta ha burburiyaan xafiisku waa santarka magaalada Hargeysa ha burburiyaan waxa arki doontaan biliiska oo difaacaya ama ciidamada difaacaya wala xafiiska ha taabanina waa kii Soomaaliyeed haye hadama ka buluuga asoo xidhay baa nabiga caayay isagu si diintu caayay kan asdeeta kiisii uu qustaa kan baaba ka khatarsan intaas waa hordhici waa inoo caawaan isku soo afurno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh